الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaynu ku jirnaa bisha Shacbaan. Waxa foodo inagu soo haysa bishii barakaysnayd Ramadaan. Haddaba waxaan rabaa inaan u diyaar garowno bishaas, uguna diyaar garowno xagga jadwalka iyo xagga nafsiyan, yani soo dhaweynta iyo ku farxitaanka bishaas iyo go'aano qaadasho ah jadwalkeena bisha Ramadaan inaan aad iyo aad uga faa'iideysano. Marka waxaan idin akhrinayaa munaasabadan oo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam khudba uu akhriyay asxaabta, oo asxaabta ay leeyihiin khadabana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam fi aakhir yawm min Shacbaan. nabiga ayaa khudba noo akhriyay maalintii u dambeysay ee Shacbaanka, yani wuxuu u diyaarinayaa bisha Ramadaan inay ka faa'iideystaan. markaas faqaala nabigu wuxuu yiri yaa ayuha naasu qad adallakum shahrun cadiimun mubaarak. dad yahow waxaa hooskiisii idin hayaa, waxaa idinku soo dhowaaday bil weyn. nabigu wuxuu ka cabiray shahrun cadiim, bil weyn mubaarakun oo barakaysan. shahrun fiihi leylatun khayru min alfi shahr. waa bil ay ku dhex jirto hal habeen oo ka khayr badan 1000 bilood, oo haddii sanad loo bedelo ay noqonayso 83 sano iyo 4 bilood. yani hal habeen oo bisha Ramadaan ku dhex jirta oo laylatul qadar la yiraahdo, qofkii asagoo cibaadaysanaya ilaahay uu waafajiyo fursadaas ka faa'iideysta, ajirka uu helayo sida uu laban laaban yahay ama u tira badan yahay wuxuu ka badan yahay maalmaha kale ee caadiga ah 83 sano iyo 4 bilood ajir uu shaqaysan lahaa inuu halkaas habeen uu ku helayo ayuu nabigu tilmaamay. waxaa ku jira habeenkaas marka in laga faa'iideysto. si looga faa'iideysto marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay oo uu yiri jacala Allahu siyaamahu fariida. ilaahay wuxuu ka dhigay maalinta Ramadaanka ah in la soomo, wa qiyaama leylihi tadawucan, habeenkiina in la istaago oo salaad la tukado ama quraan la akhristo ama la wardiyo ama yani wax khayr ah lagu soo jeedo. ilaahay wuxuu ka dhigay tadawuc, samafalasho ama si sunno ayuu ka dhigay. man taqaraba fiihi bikhaslatin min alkhayr kaana kaman addaa fariidatan fima siwaah. qofkii arrin sunno ah bisha Ramadaan dhexdeeda ku sameeya waxa uu la mid yahay sunnadaas uu sameeyey sidii asaga oo faral oo bilihii kale ah asagoo gutay ayay la mid tahay. macnaha sunnada oo Ramadaanka dhexdiisa la sameeyo yaa ajirka waxaa lagala mid dhigayaa bilihii kale salaadaha waajibka ee la tukado ajirkii laga heli jiray oo kale ayaa sunnada Ramadaanka dhexdeeda ah ayaa laga helayaa. marka sunnadiiba waxay isu bedelaysaa ajirkii faralka oo kale ee bilihii kale ah. waa fursad in laga faa'iideystay tahay. faralkiina soo noqonayaan haddii sunnadii saas ay noqotay. faralka ama waajibka bisha Ramadaan lagu dhex sameeyana wuxuu la mid yahay qofkii faral ku dhex guta kaman addaa 70 fariidatan fima siwaah. 70 salaadood oo kale, 70 faral oo kale qof gutay ayuu la mid yahay. bimacnaa halkii duhur ee Ramadaan ku dhex jira qofku markuu tukado wuxuu la mid yahay sidii asagoo 70 duhur oo kale tukaday. waana hal duhur oo keliya oo bisha Ramadaan dhexdeeda uu ku tukaday. wuxuu la mid yahay sidii asagoo 70 kale tukaday. salaad subax hadduu tukado 70 salaad subax, cisha hadduu tukado, sidaas ayaa marka ajir iyo xasanaad iyo fadli uga helaya. waxyaabaha bisha Ramadaan ay la gaarka tahay waxaa ka mid ah yani sabir weyn ayaa ku jira. waa shahru sabr ayaa layidhi, oo saddexdii sabir ama saddexdii nooc ee sabirkaba yani bisha Ramadaan waa laga helayaa. sabirku saddexdiisu waxay ahayd daacada oo lagu sabro, macsiyada oo laga sabro, imtixaanka iyo balaayada adduunyada oo lagu sabro. saddexdiiba waxay iskula jiraan Ramadaanka. oo maalan markii la sooman yahay yani shahwadii qofku ka sabrayaa, dhibaatada gaajada ee ku imaanaysa uu ku sabrayaa. yani sabirkii noocyadiisii oo dhan ayuu xaqiijinayaa. daacadii iyo xumaatadii uu ka sabro iyo imtixaankii oo gaajada ah oo uu ku sabraayo. marka waa bil sidaas ah. fadaaishiis waxaa ka mid ah qofkii afuriya, qof sooman bisha Ramadaan, qofkaas ilaahay dembigiisa wuu dhaafayaa, ajirkiisana wuxuu la siinayaa qofkan uu afuriyey ajirkiisa in la eg oo kale isagoo aan laga nusqaaminayn. waxaan rasuulka ilaahi kulli ma wada heli karno inaan wax ku afurinaya. markaas wuxuu ku yidhi qofkii ku afuriya qof xabad timir ah ama kabasho biyo ah ama wax yar oo caano ah iyo ilaahay ajirkaas uu siinayaa. marka bishaas ayaa nagu soo fool leh inaan ka faa'iideysanana aad iyo aad ayay muhiim u tahay. waa bishaas Ramadaanka oo ajirka badan leh. marka isticdaadka iyo diyaargarowga ayaan kelimadeenan maanta ayaan ugu talagalnay si dadku ay isu diyaariyaan xagga nafsiga. midda kale ee ku saabsan axkaamta soonka iyo xalaqaad in bisha Ramadaan inta lagu jiro ummadda meel kastoo ay joogto ay ka faa'iideystaanna insha allahu tacaala waa idinla soo wadaagi doonaa. waxyaabaha aad xiisaynaysaan oo qisas yani qur'aanka ku jirta iyo
taariikhdii asxaabta iyo haddii aan wixii aan ka soo qaadan karno ayagan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan idiin soo gelin doono. hadda laakiin darsigeenu wuxuu noqonayaa inaan xadiiskaas qaadanay oo dadku meel walba ay joogaan in bishii ramadaan ay fooda inagu soo hayso oo loo diyaar garoobay in la mudan tahayna inaan isku baraarujino. ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa xaaladan aynu ku sugannahay sanadkan oo ramadaankan uu ka duwan yahay ramadaanadii hore oo kale, oo ramadaanadii hore caalamka isu wada furan inagu soo geli jiray, maantana caalamkii oo kala xiran cudurkaasi corona la yiraahdo oo wadankii uu ka jiro, dibaddana uu ka jiro, dad badan oo dadka maalan kaalmeyn jirayna oo dibadahaas joogana maanta ay guryo ku xareysan yihiin oo nafsadoodii caafimaadkooda ay ilaashanayaan. isbedelada saas oo kale ee dhaqaalaha ay keeni doontana bisha ramadaan oo u baahan in la isgaraqato oo la is afuriyana bal in laga tashado oo qof walba meesha uu joogo iyo dadkii uu xiriir kala lahaa sidii la isu kaalmeyn lahaana ayadan laga fikiro. waa bil keli ah oo bilaha kale oo lasoo dhaafay oo dhan ka fadli badan. waa fursad jadwalka marka qofku inuu ku darsado inuu saacad iyo daqiiqad iyo bishaas gudaheeda wixii waqti oo dhan inuu khayr ka kasbado, dembiga iska daayo, uu noqdo bil fursad loo siiyey inuu wax badaan hortiisa uu geysto, accountkiisa aakhir inuu buuxsado. waa bishii laga faa'iideysan lahaa. marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inoogu beliyo bishaasi si khayr leh. dhibaatadan adduunka daashatayna bisha ramadaan iyo khayraadka ummadda ay ku dhex samaynayso arrimahaas ilaahay inoogaga fuudeeyo. saas ayaan idin rajaynaynaa. sanad wanaagsan, kula caam wa antum bikhayr, ramadaan kariim, taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد لهذه الأمة خيرا فحقق الخير في يديه، ومن أراد لهذه الأمة شرا فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه واكفنا من شره يا رب العالمين. اللهم يا من ألف بين الشجر والنار ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستقدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره، نحن في جوارك فاجرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم حقق آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله